guddidu guud ahaan waxaanu ka digaynaa inaan lagu dagmin dacaayadaha laga fidinayo ictiraafka dalkeenu helay ee la diimaynayo wadamo kale oo ictiraaf soona raaca dowladda Israa'iil in golayaasha qaranku meel mariyaan qaraar rasmi ah oo joojinaya wada hadallada natiijo la'aanta ah ee ay Soomaaliland kula jirtay Soomaaliya in la hagaajiyo dhismaha iyo bilicda xarunta wasaaradda arrimaha dibadda maadaama ay tahay muraayadda qaranka ee dunidu markay timaado ay la kulanto waxaana lagama maarmaan ah in dhismayaashaasi noqdaan mid u dhigma sumcadda iyo sareynta matalaadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta la hor keenay warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa guulaha aqoonsiga iyo natiijooyinka ilaa hadda la hayo. Warbixintan ayaa waxa golaha guurtida Soomaaliland la wadaagay gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golahaasi Khadar Xuseen Sahal waxaana guddigaasi warbixintooda ku sheegeen inay digniin u dirayaan dadka caadaystay dacaayada ka fidiyaan xiriirka Soomaaliland iyo Israa'iil. Sidoo kale guddiga arrimaha dibadda ee golaha guurtida waxay soo jeediyeen in labada gole ay sameeyaan qaraar lagu joojinayo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Sidoo kale guddigaasi waxay ku taliyeen in la sameeyo guddiyo aqoonsi raadin ah oo ka shaqeeya qurbaha. Warbixinta guddida hoosaadka arrimaha dibadda ee golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah ee qodobka 16aad ee kalfadhiga 9aad qodobkiisa arrimaha dibadda markaanu aragnay doodii mudanayaasha ee qodobka arrimaha dibadda markaanu derisnay nuxurka doodii mudanayaasha ee qodobka arrimaha dibadda iyo ajandaha kalfadhiga ee 9aad waxaanu ku soo koobnay warbixin iyo talo soo jeedin xaaladda aqoonsiga cusub ee xiriirka caalamiga ah aqoonsiga dowladda Israa'iil wuxuu inoo keenay guul diblomaasiyadeed waxaanay mudanayaashu cadeeyeen in Soomaaliland ay heshay aqoonsigii u horeeyay oo rasmi ah taas oo wax weyn ka bedeshay qorshihii hore aynu guurnay dal aqoonsi doonay aynu ka guurnay dal la aqoonsaday xiriirkan wuxuu dhiirigelinayaa wadamo kale oo reer galbeed iyo Afrikaan iyo qaaradda Aasiyaba inay ku dhiiradaan inay Soomaaliland la macaamilaan iyo inay aqoonsiina siiyaanba sida Israa'iil ugu dhiiratay oo kale safarada madaxweynaha iyo ololaha dibadda safaradii madaxweynaha ee dhawaanahan iyo dadaaladii diblomaasiyadeed ayaa keenay in Soomaaliland ay ka baxdo go'doonkii fagarayaasha caalamkana ay ka mid noqoto oo dal lala xidhiidho oo xushmad iyo ixtiraam loo hayo aynu noqono waxaanu bogaadinaynaa go'aamada geesinimada leh ee madaxweynaha qaranku garwadeenka ka yahay laguna raadiyo danaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii wadanku u heli lahaa wadamo kale oo ictiraaf soona raaca dowladda Israa'iil. Sidoo kale guddidu guud ahaan waxaanu ka digaynaa inaan lagu dagmin dacaayadaha laga fidinayo ictiraafka dalkeenu helay ee la diimaynayo waana in aanay dadkeenu aanay dhag u dhigin dacaayadaha ay fidinayaan dadka ka xun aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaa kadib talo soo jeedin in golayaasha qaranku meel mariyaan qaraar rasmi ah oo joojinaya wada hadallada natiijo la'aanta ah ee ay Soomaaliland kula jirtay Soomaaliya in la sameeyo qorshe qaran oo lagu suuqaynayo qadiyadda Soomaaliland loona adeegsado qurba joogta wakiilada aan rasmiga ahayn iyo hal abuurka digitalka ah in wasaaradda arrimaha dibadda dejiso hanaan cilmiyeed oo joogto ah oo lagu qiimeeyo saameynta siyaasadda dibadda in safaaradaha iyo xafiisyada matalaadda aan rasmiga ahayn lagu xoojiyo karti diblomaasiyadeed qalab iyo qorshe hawl sugan in la bilaabo barnaamijyo tababar iyo aqoon kororsi oo diblomaasiyadeed oo ay ka faa'iideystaan shaqaalaha arrimaha dibadda qadiyad siyaasadeed in la helo garab joogto ah oo aqoonsi taageero wadamada Afrikaanka ah in la abuuro sanduuqa diblomaasiyadda qaranka oo loogu talagalay taageeridda howlaha ictiraaf raadinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland
lix in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo golaha wakiilada golaha wasiiradu ay qaabeeyaan safaro diblomaasiyadeed oo leh ujeeddo cad oo saameyn leh una dhisan istiraatiijiyad qaran oo la jaan qaadaysa danaha Somaliland. Safaradan waxa si xeel dheer loogu beegsanayaa wadamada leh saameynta caalamiga ah si loo dhiso xidhiidho rasmi ah loona horumariyo fursadaha taageero diblomaasiyadeed isla markaana la xoojiyo dooda qaran ee aqoonsi raadinta. sagaal in warbaahinta qaranka si xeel dheer u taageerto qadiyadda arrimaha dibadda iyada oo loo marayo wacyigelin iyo olole caalami ah oo ay qorsheeyaan lana xaqiijiyo in xogta saxda ah ee ku saabsan Somaliland si toos ah u gaadho saxaafadda caalamiga ah si loo kobciyo fahamka beesha caalamka ee taageera bulshada caalamiga ah. toban in la hagaajiyo dhismaha iyo bilicda xarunta wasaaradda arrimaha dibadda maadaama ay tahay muraayadda qaranka ee dunidu markay timaado ay la kulanto, waxaana lagama maarmaan ah in dhismayaashaasi noqdaan mid u dhigma sumcadda iyo sareynta matalaadda Jamhuuriyadda Somaliland. Allah mahad leh.